waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. Shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday. markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiriyay qoladii saamiga u heshay. dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. saban xumaagaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dawlad qora hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyawa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor dooyaha Hindigu markay bareecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo gabay fariimeed kale. waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday. markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiriyay qoladii saamiga u heshay. dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. saban xumaagaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dawlad qora hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyawa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor dooyaha Hindigu markay bareecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo Badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu soohdimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibine waa ka dhiidhiday. mar dhiidhigaas ay adin ku muujiso iyo af iyo aftahnimo mar ay inta adeegsato ay isku guubaabiso wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareensiiso. inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen. markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis daraa Xabashida oo waayadaas boqor Mililakh kii labaad uu u talin jiray. taariikhda dhaweysaday xusaysana 1888kii Baarliin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor Mililakh ka saami qaatay, isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka Soomaalida. maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay, markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah intaba. boqor Mililakh wuxuu haddiiba Soomaalida reer miyiga ahayd ku soo rogay cashuur siloono dhowr jaada. marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn, marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soocnayn, oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaago oo xubnaha qoyska qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn. cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin, oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo Soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'ayaa markaad ogaato in talisyadii askartaas laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgeli jireen ay aad u kala fogaayeen. sidaas awgeedna
mushaarkoodu soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walboo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. hadiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen, soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa. intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba 5 geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. sida la wariyena degmooyinkii qaar baaba si kaba dambaysa askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka shuban jireen iyo carshintii ay daaqsan jireen. iyada oo saxariirtaas lagu jiro oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka Jigjiga ku kulmay wadaad gabyaa ahaayo ow Maxamed Guure la odhan jiray iyo nin magaciisa Cabdi lagu sheegay, dhalaartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hubyood ee mudug inuu u sadcaalo. hilaadda waa horraantii 1912 sadanadaas oo xarunteedu ay magaaladaas ahaydna waxaa markaa ka taliya Suldaan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabihii kadib isaguu kursigii talada salka dhigay. oo Maxamed Guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in suldaanka uu qayradhaan u sii dhiibo, isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeedoo askartaas halka iyo hoyaadkaba u diiday dalkooda uga saara, dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dirqiya. maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariimeed tiiraanyo miirana oo laga ogaan karo jeefaafila'idii boqor Meelelekh iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen iyo siday nolosha ugu dacareeyeen. oo Maxamed oo Cabdi ku halqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya arar gaaban oo salaan suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan. wuxuu markaba ka sheeganayaa boobka ay cashuurta ku magacaabaan. wuxuu ka samreelayahay dhaca lagu hayo ee cad iyo caana wixii ay markaa hayaan ay askartu qasabka kaga qaadato. wuxuu haddana gocanayaa subaga iyo oodkaca uu ciidanku ka fisho oo iyaguna waagii baryaba ay dhabarka ugu siisidaan, iyada oo wiil yar iyo waayeelba ay ka qadsan yihiin. wuxuu yidhi, cabdiyow carrawdaya haddii aadan calooliyoobin, caafimaad qab nololeed haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culamadiinnii dheh. dabadeedna caad baxoo u sheeg caawa saan ahay ee dadkeennii galbeed calowgeliyo cadowgii loo heerle anna ciidan doonkiis rag iyo ceelal yaan ahay dheh. gaadhada caweertale wixii caraftiyaan hayno cajab iyo si yaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh, caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixin dheh. ciroolaha da-oobiyo dhashaan caday la leebsiinin codcodadii caanaanu weel uga cabbaynaa dheh, calool looma siiyee dirqay nagu cabiidsheen dheh. wixii uu gumaysigu geyeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayaa uu Maxamed xusayaa foolxumooyin markaas ka hor aan Soomaalida la maqashin karin, haatanse lagu dirqiyey, sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysato, iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan. intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanayo, ayuu suldaanka ku beerdaruucsanayaa inuu ka baqaayo kollay addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro, tu kalena lagu dambaysiiyo. wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta Meelelekh ay kordheen kadib markii Sayid Maxamed uu Jigjiga qabsaday, isaga oo u tafaxaynaa xoreynta imaaradii islaamiga ahayd ee Harar. markaas buu yidhi, ictibaar adduun niman arkoo ciil qabaanahay dheh, casho noolba naagaha yagay cududda haystaan dheh, cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh, nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraa dheh, caradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh,
carar baan ahayn meeshan iyo ciiddii ramadaan dheh. caskar xoog le niman waayey oo ciil qabaan nahay dheh. cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh. cabiid qaadanee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh. annagoo calaacali asii weliba eegaagna oo caalinoo ladanuhu cadhiyey sheekhii dheh. dabadeedna cilibteed go'dooy nama caqiibayn dheh. cidaaday ka yeeleen waxay cagidii taabeen dheh. mooggana col bay gelin hayeen caymadkii haray dheh. haddaad caaqibayn reertolkaa cabay suldaankii dheh. waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey. ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin, iskumana uu dayin. maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin. hobyo iyo jigjigana dhul badan baa u dhexeeya. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. labadii 2003 wixii ka horreeyey dalalka carbeed markii la yidhaahdo ciraaq wuxuu ahaa dalka ugu horumarsan. waxaad ku garataa akhris iyo qoris la-aanta waa dalkii gudihiisa ka tirtiray. bilyano dollar markuu cilmi baarista u huray. waa dalkii isbitaalladiisa iyo takhaatiirtiisa ay dunidu la yaabtay. qaramada horumaray qudhowduna ay ku kuunyi jireen. waa dalkii heerka sare ka gaaray farsamaynta hubka casriga ah. xagga sayniska, gaar ahaan culumta fiisikada, wuxuu ahaa dalka keliya ee carbeed ee dhidibada u taagay warshad kasmooyinka nucleerka lagu baaro, taasoo israa'iil ay gadaalkii burburisay. asii taariikhda ku gashay inay tahay dhulka carabta tii ugu horreysay uguna dambaysay. waxaas oo idiri meeshii ay mareen amaba la marsiiyey soomaalidu badiba waa u og tahay. maxaa aniga 14 gu kadib xusuustayda ku soo celiyey? waa su-aal meesha ku habboon. jawaabteeduna waxay tahay waxaa ku soo celiyey 2 sababood. midi waa sheeko markaan maqlay aan dabi la murugooday. midda kalena waa idaacadaha qaarkood markii ay tabinayeen af soomaaligii ay ku tabinayeen oo qaldanaa. aan haddaba sheekada soo horraysiiye waxay ku saabsanayd qoys reer ciraaq ah oo ka kooban hooyo magaceeda ummu xuseen lagu soo koobay, ninkii ay u dhaxday iyo 2 wiil oo ay isu dhaleen. waa bilihii ugu horreeyey 2016. dhowr iyo 10 ayuu qoyskaasi ku dhex jiray dagaallo aan jeefaaf lahayn. markaas bay sidii carsaanyada xeebaha gudaha dalkooda kolba dhinac u cararayeen. maalinba seheer bay joogtaaye waxay heli kareen, waxay haaban kareen iyo kayd wixii ay dhigteen. markay dhowr sano jidiimanayeen ayay habeenkii dambe is arkeen, iyaga oo wax dab la saartaa aanay guriga u oolin, meel kalena aan ku ogeyn. kolka maxay yeelaan? odaygii iyo haweenaydii ayaa tashi isugu noqday. ugu dambaystiina waxay isku raaceen talo inay ku heshiin karaan aanay weligood soo rogin. waxay ku tashadeen si aan carruurtu uga aqan in qaar ka mida xubnaha oogadooda ay iibsadaanoo marka hore haweenaydu ay hal kelli qoyska u iibiso, wixii ay u baxdo markay dhammaystaanna miduu isagu leeyahay uu aabbuhu reerka u iibiyo. hase ahaatee qoladii xubnaha dadka ka ganacsan jirtay ayaa diiday 2 keliyood ee ummu xuseen inay middood ka gataan, kadib markay inta baareen caafimaad darro
ay ku arkeen. dabadeed markii ay warkaas u soo sheegtay ayuu saygeedii haddiiba ismelmalay. wuxuu isa sii taagay xaafad magaalada baqdaad ka tirsan si aan ahayn tii ay afadiisu ku soo hungowday. baryahaasna ganacsiga xubnaha aadanuhu uu si aad ah uga aroosnaa. nasiib wanaag ama nasiib darro tii ay noqotaba, saygiina afadiisii kama ayaan roonaan oo isagana keliyihiisii inta fayoobi darro lagu sheegay ayuu la soo noqday iyaga oo dhagadhan. sow kolka inay tashi kala holliyaan ma noqon. waxay marba tala rogrogaanba. ilaindani waa seetee waxay kolkii dambe ka badin waayeen in keliyaha labada canuug midkood ay iib geystaan, iyaga oo filaaya in kuwooda aan wax cudur ah laga heli doonin. dabadeed iyaga oo ilmadu ay xirribahooda ka gobo leedahay, iyaga oo midna aanu midka kale eegayn, ayay wiilashii midkood la dhaqaaqeen. hase ahaatee cabbaar kadib markay laba dhex marayeen ayay iscululubteen oo waa beer wax dhalaye iyaga oo aan ka wada xaajoon wiilkoodii dib ula soo noqdeen, isaga oo keliyihiisii ay oogadiisa ku idil yihiin. taasi waa sheekadii markii aan maqlay aan ka murugooday. sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa sheekadaas xusuustayda ku raajiyey amaba ku soo celiya ma ahayn oo keliya maqalkeedii murugada aan ka qaadaye, waxaa weheliyey sabab kale oo ah af soomaaligii ay warbaahinta qaarkeed ku tabisay oo qaldanaa. maalmahaas ayaan idaacadaha middood waxaan ka dhagaystay weliye dadweynaha dhacdadaas uga warramaya oo sida soo socota ugu sheegaya. wuxuu yidhi, ummu xuseen iyo ninkeeda oo ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan unugyada jirkooda. hase ahaatee waa lagu diiday caafimaad xumo awgeed. markaas bay ku fakareen in kelida wiilkooda ay iib geystaan, waase ka noqdeen. waxaa haddaba qaldani waa maxay? wax kale ma ahee waa tabtii uu weliyuhu u adeegsaday erayga unug oo siduu mooday ka duwan. unug waa eray af soomaali ahaan laba macno xambaarsan. macno hore oo asiili ah oo reer miyigii soomaalidu ay u yaqiineen iyo mid waadhow loogu daray markii inta afka la qoray eray bixinta casriga ah loo yeelayay. sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay yaasiin cismaan laga dhaxday, macnihii hore ee eraygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya. sidaa daraaddeed waxay u badan tahay qofka miyiga ku koray markuu maqlo erayga unug in maankiisa ay ku soo dhacdo haan, dhiil, haruub, bire iyo wixii la too ah, kuwaasoo marka tulidooda ay dumarku ku bilaabaan wareeg yaroo dhuuban oo marba marka ka dambaysa dhinacyada u fida, weelka intiisa kalena ay ka toranto. waxay ku mahmaahi jireen haani gunbay ka torantaa, gunta la sheegayaana waa unuga. macnahaas oo keliya iyada oo erayga loo yaqaan ayaa la soo gaaray 1970 waagii afka la qoray. markaasoo muddo gaaban kadibba la go'aansaday in loo rogo afka maamulka iyo waxbarashada loo adeegsado. taasina waxay qasab ka dhigtay in horumarintiisa dadaal xoog leh loo galo. dadaalkaas isaga ahna waxaa ugu muuqdheeraa samaynta ereybixin aad u fara badan oo guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashadu ay qaybta ugu weyn ka qaateen. dhabtii waxay ahayd hawl uu afku ku gaaray heer uu ku noqday af xambaari kara aqoonta casriga ah, gaar ahaan sayniska sida kiimikada, fiisikada, biyolojiga, xisaabta iyo kasmooyinka ay isla wadaagta yihiin. markii haddaba ereyada biyolojiga af soomaaliga loo soo rogaayey ayaa guddi hoosaadkii hawshaa gacanta ku hayay waxaa soo maray ereyga seel oo ah erey afafka reer galbeedka qaarkood ka soo jeeda, laguna qeexo qaybta ugu yar walax kasta
oo nool oo in weyneeye loo kaashada mooye aan isha oo qura lagu arki karin. dabadeedna wax kolba mid u dhigma erayada af soomaaliga looga raadshaba ugu dambaystii waxaa la isku raacay ereyga unug, kaasoo waayadii dambe macnahaas labaad kaga hirgalay xarumaha waxbarashada iyo shaybaarada. keliyuhu waa laba cad oo xubnaha uurku jirta loo yaqaan ka mid ah. waxa oogadu nacdo iyo dhiigga ayay kala soocaan oo kaadi ahaan dibadda ugu soo saaraan. sida xubnaha kale ee oogada ayay tu waliba unugya uga samaysan tahay. sidaa daraaddeed wuxuu afka wariyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa ummu xuseen iyo ninkeeda oo ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan xubnaha jirkooda halkii uu ka yidhi unugyada jirkooda oo ah wax aanaan maqal in si gaar ah loo kala iibsado. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, inkastoo dalal badan oo qaaradda afrika ka tirsan waayeelka aada looga qadariyo, haddana markii dhinacaas wax laga eego oo ummadaha la isbarbar dhigo soomaalidii hore lala mid ma ahayn. dhaqankoodii haddaynu dib u meelcisannana waxaan ogaanaynaa inay ahaayeen dad waayeelka aada u ciseeya, si gaar ahna maamuus dheeraad ah ay odayadu ugu qabeen. siyaaro kala duwan ayuu haddaba maamuuskaasi hiddaheeda uga muuqan jiray, waxaana ka mid ahaa 10 aan halkan ku tixi doono. haddii si rawaco oo waxgaradka reeruhu uu geed haraca ku soo ururo, xaajo murugtay furdaaminteedana la isugu qayshado, odayga ragga ugu da'da weyn ayaa hadalka furi jiray. haddii goobtaas aan wadaad joogin, ugaasna joogin, isla odaygaas ama mid la da'ah ayaa ducayn jiray, inkastoo mararka qaarkood ay labadooduba ducada gar u lahaayeen. hadduu meel shiran lagu yahay uu odaygu ku soo beegmo, fadhiga ayaa looga wada kici jiray. meeshaa la fadhiyo kobta ugu mudanna waa la fadhiisin jiray. halka ay odayadu fadhiyaan dhallinyaradu kama hadli jirin, odayga afkiisana hadalka lagalama bixi jirin. haddii inta muraad la yeesho xoolaha qaar lagu allabadhiyo, hilbaha neefka inta ugu wanaagsan amaba ugu mudan odayada ayaa lagu maamuusi jiray. dhallinyarada iyo haweenkuna wixii ay iyagu soo reebaan ayay ka dhursugi jireen. haddii qoori xero kuma heshiisee ragga qaar intay coloobaan ay si uun anafa u kala gaadho, si aanay rabin halka markaas ay arrintu marayso meel ka xun inay isku shareerto, odayada inoo geeya ayay odhan jireen. markay iyagu wax kala yidhaahdaanna way ku kala baskoon jireen. haddii degaamada midkood ay wax foolxumi ka dhacaan, isla markaasna aan wax laga qaban, waxaa la isweydiin jiray war meesha miyaan odaya joogin. hebel baa joogay markii la isugu warramo ayay inta wada haaraamaan waxay odhan jireen kaasi odayna ma ahee nacab ama nacas ayuu midkood yahay. colaaddu sabanka ay aroosan tahay, nin waliba kama taliyee odayada oo qura ayaa ka talinteeda lahaa. iyaga ayaa go'aamin jiray haddii reer hebel lagu duulaayo iyo haddii lala nabdaayo, waase haddii lagu soo simo. gabdhaha lama bixin jirin haddii goobta lagu bixinayo aan odayada reerkooda wax ka joogin. barbaarka iyada guursanayana looma meherin jirin haddaan odayada jifadiisa cidi kala socon. waa dhow ka hor, banaadir iyo degaanada u dhow dhow
waxaa reebanaa in qof dhalinyari uu nin oday ah magaciisa oo keliya ugu yeero. salaantiisuna waxay ku ekayd garabka oo laga taabto. aw hebel ayay ugu yeeri jireen, hadday waayeel dumar tahayna ay hebla ayay odhan jireen, sida tusaale ahaan ayfay ama ay iisha iyo wixii la mid ah. siyaabihii bulshada soomaalidu ay waayeelka u maamuusi jirtay ayaa waxaa beri hore nooga sheekeeyey abwaankii sheekhana ahaa ee reer xarar dheere, xaaji maxamed axmed liibaan. wuxuu yidhi, oday taag dareeyey oo tallaabsigu dhib ku yahay ayaa waxaa ka daba iman jiray dhallinyaro tabaraysatay, da'yar 20 ilaa 30 ku tirsatay oo intuu xooggii ka batay inay duulaan haaminaya. markay odagaas u soo dhowaadaan ayay socodka gaabin jireen, dabadeedna intay salaamaan ayay tallaabo tiisa la mid ah dabin kula socon jireen. cabbaar markay iswaraystaan ayay ku odhan jireen, awoowe dhul dheer baanu ku soconnaaye jilibkayaga fur. kolkaas buu inta u duceeyo fasixi jiray. abwaan kale oo allaha u naxariistee ibraahim mira la odhan jiray, fiqi buraarana lagu naanaysi jiray, ayaa ka mid ahaa raggii maalintaas xaaji maxamed garab fadhiyey. markaas buu isna ka sheekeeyey dhaqanka soomaalidii hore iyo waayeelka, isaga oo ku bilaabay oraah murtiyeed la yaab leh oo aad moodo hiddihii soomaalida oo idil in gudaheeda lagu soo koobay. wuxuu yidhi, waxay odhan jireen ciro cise mudan, gobi guddoon mudan, culimo duca mudan, gari xeerbeegti mudan, guurna hiddo mudan. noo laqbee markaanu ku nirina wuxuu yidhi, cira cise mudan waxay ula jeedeen waayeelka da'da ahi in cid walboo kale uu isagu xurmada iyo maamuuska ka leeyahay. gobi guddoon mudan waxaa looga jeedaa ogaaska, boqorka, maraakha, garaadka iyo kuwa kale ee la meekhaanka ahi in taladii kolba la isku raaco guddoominteeda ay iyagu gar u leeyihiin. culimo duca mudan iyadoo laqba dheer uma baahna oo waxaa looga jeedaa halkii la isugu yimaadaba culimada ayaa ducada iska leh. gari xeerbeegti mudan waxaa loola dan leeyahay odayada garyaqaanada ah ayaa mudan inay bulshada u garnaqaan, saa iyagaa dadka xeerka ugu badiye. guurna hiddo mudan waxaa loola jeedaa gabadha aad guursanayso inaad hidda raacdo oo xag hooyo iyo xag aabbaba aad u dhaba gasho ragga iyo dumarka uu firkeedu ku arooro. nin baaberi inta cayaartuntay wuxuu yidhi, suul ayeeye kuu galay iyo sinti waa maguuraan. suugaanta soomaalida sida laga dhexeli karo, odayga ay ciradu madaxiisa wada saabatay waa ka xishoon jireen. meel ay ka soo guuriyeenna garan maayee waxay bulshadu badiba u rumaysnayd duqa muuqaalkaas leh in eebbaweynaba uu ka xishoodo. si kastaba ha ahaatee wax walba uu kaga dhego waxay u badnayd inay uga fuqaan, iyada oo haddii madaxiisu uu madoobaan lahaa aysan uga fuqeen. waxaa la yidhi, khayro soomaaliyeed ayaa jeer geel laga dhacay, markaas bay dagaal ma guddoonsane qoladii ka dhacday erge u dirsadeen. siday ahaan jirtayna ergada caynkaasa raggii lagu dari jiray waxaa ka mid ahaa gabyaa caana iyo oday madaxu caddaaday oo aad loo yaqaan. ergadii markay soo gaadhay reerihii xoolaha ka qaaday ayay si walba isugu dayday inay ka dhaadhiciyaan inay geela u soo ceshaan. ha yeeshee markay guul degdega taas ku gaari waayeen ayaa gabyaagoodii wuxuu goobtii ka mariyey gabay dhowr iyo 10 sababood uu ku taxay in nimanka ka hayaa ay daraaddood geela ku siiyaanna uu uga gol lahaa. wuxuu tixditiriyaba meel dhexe markuu marayo ayuu oday da-ah oo ergadooda ku jiray intuu farta ku fiiqay wuxuu yidhi, nin ciro leh cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag caddaaday baa nagu jiree geela noogu cesha. dabadeedna waa siday odhan jireene geelii faraha
ayaa laga saaray. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, barnaamijkii kan ka horeeyey sidaad ku maqasheen si weyn ayay soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay. hiddahaas isaga ah si aan u muujiyana waataan idiin taxay 10 arrimood oo maamuuskaas loo daliishan karo. maantase su-aashu waxay tahay, mada'dooda oo keliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray, mase waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo? waa runo da'da meesha lagama saari karo, mase ahayn sababta keliyahe waxaa weheliyey arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento, awgoodna ay xurmada bulshaweynta ku hanan jireen, waana waalidnimada iyo waayo aragnimada. waalidnimada haddaan ku hormaro, barbaarkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa inay tacabla-aan ciisho mooye siday u badnayd goor hore ayuu guursan jiray. dabadeedna isaga oo weli xoog ah ayuu hareerihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20 gaaraya iyo intaas in ku dhow oo ay sii dhaleen isagana ku abtirsata. dhabtii warashadaas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray, weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay. waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo, markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay haddiiba garan waayaan, waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabbihii ama waa heblo aabbaheed. taas odayga waa lagu qadarin jiray, xataa hadduusan nin horaad ahayn. tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin. gabyaa faarax xuseen sharmaarke la oran jiray ayaa jeer arrintaa ka cawday. isaga oo da'yar ayuu ku caanbaxay curinta maansada wanaagsan ee murtida iyo halqabsiga miiran leh. hase ahaatee kol dambe ayuu dareemay in laga horraysiinayo rag ka waaweyn oo ay isu gebyi jireen, isaguna uu iska horwaday. kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado. dabadeedna gabay uu arrintaa ka mariyey tuducyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn dhegna loo dhigay. wuxuu yidhi, garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado, koruu waalidnimadii dugsado, waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo cisayn yaan isaga daayi. waalidnimada oo odayga lagu maamuuso waxaa sidaan soo sheegay labeeya waayo aragnimada. badanaa 80-90 gu ayuu baarka ka jaray. abwaano wada hebel miiran ah ayuu la soo saayirayoo la soo sinjaaray. geedihii dadka lagu kala saari jiray ayuu wax ka fadhiyi jiray. markaas buu xusuusan yahay garihii waaweynaa ee lagu naqay iyo xeerarkii ka abuurmay. aaran lagu naalooday iyo abaar lagu hoobtayba wuu u soo joogay. isrogroga cimilada ayuu wax badan ka og yahay. markaas buu marayn karaa xilliyada roobabka guga ama kuwa dayrta la filan karaayo. berrimada ay xooluhu ku banaanaan iyo meelaha ay ku basanbaasaan ayuu kala yaqaan. dadka ayuu kala bartayoo inay u leekaataba taariikhda degaankiisa ayuu u warhayaa. markaas baa tol u dhowaa iyo mid ka fogaaba wax laga weydiin karaa.
colaaddu waxay dhibto iyo nabaddu waxay tarto ayuu u dhuun daroolaa, markaas buu labadaba ka talin karaa. aqoontaas uu nolosha ka biirsaday iyo waayo aragnimaduba waxay odaga dhaxalsiiyaan deganaansho iyo in dhacdooyinka la soo gudboonaada uu dhab ugu fiirsado inta aanu go-aan ka qaadan. oo da'yarta ayaa fureed lagu sheegaaye in odayga lagu arkaa dhif iyo farkudoon bay ahaan jirtay. cabidhuux gabyaagii la odhan jiray ayaa jeer ka ergeeyey geel isaga iyo qoladiisa laga qaaday. nimankii qaaday markuu dul tegayna wuxuu ka hortiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob, kuwaas oo siduu islahaa ku garsiinaya in geela loo soo noqo. markaas buu ku bilaabay tuduc uu ku dhaliilayo dhalinyaro malaha ku dadaalaysay in aan geela loo celin. isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinayaa kurayada uu fureydku waarayo in taladooda aysan dhagaha u jalqin. mahmaahdii ahayd 20 jir intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa isaga oo maanka ku haya, ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haroo wada gudho ah geela igu siiya. ninku yari garaadkiisba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin ee bahay gabi ka sii xooliye waa yeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxsaa tii garaada ahe halgabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. sababaha odayada loogu irkan jiray kadibna ay maamuuska dadweynaha ku mutaysan jireen talabixinta ayaa ugu weynay. waayo aragnimadii ay nolosha ka heleen ayay ku yeesheen awood ay tala habboon dadka ku siin karaan. waxay ka talin jireen wax walba oo nolosha ku saabsan sida guurka, dhaqaalaynta xoolaha, xidhiidhka qoyska, xidhiidhka tolalka iyo wixii soo raaca. markaas baa ciddii ay arrini soo food saartaaba iyaga ula tegi jirtay. allaha u naxariistee cabdigahayr oo ahaa maansayahan caana ayaa gabayadiisa midkood jeer wuxuu ku sheegay ninkii guur maagaa inta aanu qabiltu odhan sidaanu talada odayada uga maarmi karin, hadduu ka maaran is yidhaahdana siduu meel xil leh ugu dhici karo. wuxuu yidhi marka horeba guur waa milgiyo maarsi kala waaye, ragga qaarse uma meel dayee waiska mehershaaye. haddaan lala mushaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo meedin ninkii keligii maalootiyaa meel xun waa u harise. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha meeqaankii sare ee bulshadii hore ee soomaalida ay odayadu ku lahaayeen. dhegaystayaal, maalinta taladiisa loo baahdo odayga waa la tamadiyaa. halka uu ku sugan yahay ayaa loogu tagaa. markaas baa loo bandhigaa xaajo adag oo la maarayn waayey ama laba talo oo la kala dooran waayey midda mudan in la raaco. mar kalena isaga oo aan la weydiisan ayuu odaygu la taliyaa qof ay xigaal yihiin ama ay waday yihiin amaba xiriir si kale ahi uu u dhaxeeyo. badanaa waa qof uu u baqaayo, qofuu isleeyahay tubta qalloocan ee uu hayo haddaadan kala talin in goor ay noqotaba ay laandayri la duuli doonto. odayadii haddaba aan taladooda dadka kala masuugi jirin, inay ku habboon tahay markay la ahaatana aan dib u dhigan jirin waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mire, maansayahankii la odhan jiray. gabayadii iyo geeraaradii uu ka tegay qayb weyn oo ka mid ah ayaa waxay ku saabsan tahay talooyin uu siiyey
rag iyo dumar ay dagaan wadaag ahaayeen. marar kalena wuxuuba la teliyey xoolaha la dhaqda qaarkood sida hashiisii Markab, sida Wambaraara oo arigiisa ku jiray, iyo sidoo kale shimbirka aynu guuguulaha u naqaan, kolna aynu galowga ku magacowno. taasina runtii waa arrin intaan ogahay gabyaa uga horreeyey aanu jirin. haddaan kolka tusaaleeyo dadkii isaga oo aan la weydiisan uu taladiisa ugu deeqay, waxaa ka mid ahaa nin ay xigaal ahaayeenoo Saleebaan Caabi la oran jiray. wuxuu ahaa inan dhallin yar oo beryahaas aad uga tiiraanyeysnaa nin isaga iyo Ismaaciilba ay ilmaadeer ahaayeen oo la dilay, Jaamac Calina lagu magacaabi jiray. nasiib darro ninkaa dilkiisa nimankii loo tirinayay kama ay garaabin. magtiisa haddii loogu tagayna muran bay geliyeenoo waa duudsiyeen. weliba gabayo digasho ah ayay geeridiisii ka tiriyeen. Ismaaciil oo qudhiisu dhacdadaas aad uga murugaysan, asii xarga isku haya oo mag boqola in loo keeno aan weli ka quusan, ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yimid meel ay reeruhu muraad ku lahaayeen. haddiiba waxay ishiisu ku dhacday Saleebaan oo aad u umalsan, jirkiisa haddii meel laga sarana aan dhibic dhiigahi ka soo dhacdeen. sow in dhaweydba waagu hadduu baryo iyo hadduu aasku dumo, mar walbaba wuxuu ku taamayey inuu wacdara geysto, inuu u aaro ninkii cayaayirka lagu dilay ee goor barqa ah lagu dhugtamay. kor ragga kale ka yara durugsan ayuu kada loobaa, caraduna foolkiisa ayay dhab uga muuqataa. Ismaaciil oo sidaan soo sheegay ay Jaamac ilmaadeer dhow ahaayeen, sida la wariyena ay aad isu jeclaayeen, ayaa Saleebaan la soo joogsaday. markaasna ku yidhi, war Saleebaan, maxaa dhacay oo aad keligaa la tahay? maxaa cidada ku dhigay? maad ragga ku soo biirtay? markaas buu ugu jawaabay tix kululoo aan la soo gaadhin dilkii Jaamac, tix ku saabsanoo ay ka muuqato umarkii uu la tiicaayey iyo nimankii ina adeerkii dilay bayi uu la maaganaa. hase ahaatee Ismaaciil tixdaas ma jeclaysan. wuxuu u qaatay talaxumo, dhallinyaranimo iyo digniin baxaysa inay horseed u tahay. dabadeed waxay gabyaaga la ahaatay inuu Saleebaan waaniyo oo waayo aragnimaa ka maqane uu u sheego waxa ku habboon inuu yeelo. muxuu haddaba kula taliyey? wuxuu ugu hormariyey bal horta qaylada iyo baroorta joogtada ah inuu iska daayo, si isaga qudhiisu ciilka uu qabo aanu ugu kaakicin, murugada haystana aanu ugu dhaqdhaqaajin. intuu xusuusiyo inuu oday yahay, inuu ka tala qaataana ay ku habboon tahay, ayuu ku waaniyey gabay uu ku bilaabay. tixda gabay ina Caabiyow, tuducba waa meelee tahantoog ma huro, meel haddaan tuba la qaadsiine tolaala'ayda iyo qayladaad tolatay waayaabe tiiraanyo iyo ciil rag qaba, turuqday boogtii iyo oday talada lama dhaafiyee iga ta'wiil qaado. markaas buu hoos u gelayaa dulucda gabaygiisan ay ujeeddadiisu tahay, haddiiba inaad aarsataa ay kugu weyn tahay, sida iyada oo aan lagaa digniin helin ragga godobtaada qaba looga aarsado. wuxuu u sheegayaa ciilka iyo carada uu qabo isaguba inuu la qabo, ha yeeshee uu la gabanayo laba arrimood dartood. midi waa nimankii Jaamac qabay oo war cusub iyo dorow uu ka sugaayo. tan labaadna waa Mr. Smith, taliyihii gumaysiga Ingiriiska oo dhulka gaafureegaya, dhaqdhaqaaq colaadeed ciddii looga soo sheegana haleele iyo horweynba intuu geela ka mooro duugo xeryaha u madoobeynaya. wuxuu yidhi, durba lama tallaabsado, haddaad tooga leedahay ee tol baxnaani baa igu jirta, iyo tacab rasaaseene haddaan dunida taanbuug camirin. tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen, towlanoo maqane ismiir bay igu taagane intuu tegaya ii kaas.
intaa markuu yidhaahdo ayuu ku xejinayaa ninka isaayadiisa ku raar jooga inay la gudboon tahay in umalka haya uu qarsado. tashigiisu wuxuu yahay inaan laga dareemin. ragga uu maagan yahay inuu aao inuu ku dhex jiro, sidii nimaan waxba u qabin inuu ula jalbeebto. ugu dambaystana uu ka doorto midkooda ugu geesisan, ugu deeqsisan, ugu magaca dheer, ugu waxtarka roon ee haddii jaamac loogu aaro ay qoladiisu u baranbarayso oo ay u jabayso. kolka uu sidaas leeyahayna wuxuu Ismaaciil maanka ku hayaa su-aashii markaas oo kale ay Soomaalidu isweydiin jirtay oo ahayd, tolow reer hebel yaa laga dilaa? wuxuu yidhi, nin tayiisa maagani inuu taleelo waa ceebee tayaaqadu digniin kama tagana, laysu tabiyaaye la turba oo tilmaansada nin raga tuusma aalgudo. tuulada markaad ugu tagtaan taaha ka ogaada, salaanaan tolnimo hoose jirin midigta taabsiiya, tagoogada miday kaga jabaan, toogta la ogaada tolaala aya aarsada sidii tabaxsay oo aarka bud. muddo gaaban kadib waxaa dhacday tabihii uu Saleebaan kala talin jiray in Ismaaciil uu ka maarmi waayo, welibana uu baradheereeyo. markii waanwaani dhacantay, markuu ergeyntii waxba ku waayey, markii uu sugaayey markii laga quusiyey ayuu afkiisa furtay. tixa guubaaba ah oo dhiiggu da-ayo ayuu ooda ka soo qaaday. wuxuu soo ifbixiyey gabayo aan iska yeelyeel uga soo bixine ay tiiraanyo dhabihii ka keentay, gabayo ay Soomaalidu badiba wax ka maqashay. waxaa ka mid ahaa kii uu u marin jiray gabankii yaraa ee soo ag fadhiistay ee jaamicii la dilay uu dhalay. waa gabaygii ay meerisyadiisa ka midka ahaayeen, wiil yahow ilmaa igaga timi aragtidaadii qalbigaa i oogsaday, markaa tiri adeerooway haddaan anigu odayoobay oon anafadii daayey ashahaado mooye, haddaan eeba ridi waayey allaa igu og inaan aabbaha cidi u aarayn. iyo kii uu ku oran jiray, isma oga ismaydiya ninkii ayla foobsaday, isma oga waraabaha amle iyo awr la laayacaye, isma oga atoor qadow bartay iyo uubta loo qodaye, isma oga nin urugaysan iyo eelka kii dhigaye, isma oga aqoon xumo dhargay iyo malag arsaa'iile, isma oga agoon iyo ninkii aabbaheed dilay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.